xajaaj baa markaa wuxuu yidhi markuu arkay inuu iska qirsan yahay gafkii oo shacbi uu ka garaabay dagaalkaas inuu dagaalku muslimkii baa la kala jebiyey nidaamkii islaamku u dhigay beecada iyo dee tartiibtii waa ninkan waa nin caalime uu garanaya waanu qaldanay buu dee cadhaana qaaday cadhadii aanu adiga kugula dhacnaana qaaday laakiin arrintu gaf baa ahayd markuu arkay inuu ictiraaf sameeyey xajaaj baa la hadlay ninkii sheekh ahaa wuxuu ku yidhi adigu waxaad ka wanaagsan tahay qaar badan oo seeftoodu dhiiggayagii uu ka dhibqayo oo been noo sheegaya oo odhanaya anuu kumaan jirin anuu halkaasaan iska fadhiyay anuu kitaab baan akhriyay kuwaasaad ka fiicantay runtaad iska sheegtaa adugu iminkana waxaan kuu sheegayaa buu aamin baad ku dili mayno dadkaan dilaya kugu dari maayo waan iska kaa daayay laakiin waxaan ku leeyahay waan ku waraystee yaa shacab kayfa wajadta annaasa bacdana bal markii hore waa inagii wada joognee intii aynu kala maqnayna nala dagaalamayseen nimankii aad raacda ee aanu kala tuurnay bal ka warran sidee xaalkoodu ahaa shacbibaa markaa ka warrama waxay idhaheen wallaahi soo jeedna wuuna dilay waxa soo jeed kale dee niman jabhada baanu ahaynoo firdhala buur iyo bannaan walbana orod baanu ku dhaafay cabsiduna naguma yarayn wafaqadnaa saalix alikhwaan rag badan oo aanu saaxiib ahayna waanu weynay walam ajid min alamiiri khalafan adigana wax ku dhaambaba maanaan aragba xajaaj baa markaa wuxuu ihi insarif yaa shacb fansarafa aaminan shacbi halkaasuu iskaga daayay waxaa kutubta taariikhdu ay tilmaamaysaa dadka xajaaj la hor keenay inay dil uu u geysto garbaduub u dilay inay gaadhayeen 100 ilaa 130 kun oo qof oo muslimiintii ah oo culimo iyo cuqaalba leh iyo niman dagaalamay dad muslimiin u leh marka isagu waxay ahayd sida sharcigu wuxuu ahaa ilaa waa daalin oo uu gafayaa kacdoonkii haddii la kala tuuray in dadkan aan la dabagelin kuwada firdhada nimanka buqaada la yiraahdo mar haddii awoodooda la jabiyo in la xidhxidho iyo in hubka laga qaado uun mooyaane inaan dee gawda laga saarin been ilaa qofka awooddiisu in la jabiyo oo dowladda islaamka laga badbaadiyo mooyaane in isagii la baabi'iyo ujeeddadu ma ahayn xoolihiidana waa xaaraana buqaada lama qaniimaysan karo ka dhaawaca aan lama dili karo ka firdhada waa la iska dayn wixii kumuu dhaqmine ka faa'iidee buu islo 100 kun buu garbaduubu dilay ilaa 160 kun oo qof ayuu iska baraaciyay raggu dilay waxa ka mid ahaa Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas mujaahidkii weynaa raggii jannada loogu bushaareynay min kamida inankiisii Sa'd raggu markaa taariikhda muujiyay waxa ka mid ahaa Saciid ibn Jubayr taabicigii jaliilka ahaa taabiciye buu ahaa waxa mucallin u ahaa Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar iyo Aisha dadkii uu ka qaadan jiray cilmiga ayay ahaayeen qarnigaas uu isaguna ahaa nin fiqi badan oo cilmiga xadiidkana yaqaana tafsiirkana aad u yaqaano ahaa ibn Abbas cilmigiisa ragay ka qaatay buu ahaa Saciid ibn Jubayr markaasuu ibn Abbas ku yidhi dadka waxbar haata oo ma adigoo joogaan ummadda waxbaraa buuri ilaahay fadligiisa miyaanay hayn buuri haddaad saxan tahayna inaan ku saxo oon ku akido haddaad khaldantana aan ku toosiyo taasuu maan kuula taaganahay cilmigii aan aqaanay waad baratay dhaqaaji ninkaa isaga ahay Saciid ibn Jubayr waxa oo markii xajaaju dadkii colkii ka guulaystay raggii cararay buu ahaa kolba meel buu carray wuxuu laakiin aad u jeclaa xajka iyo umrada sanad walba meel kasta ha marayee wuu soo xaji jiray oo wuu soo umraysan jiray Saciid ibn Jubayr nibaado badanna uu ahaa zaahida imaamkiisu weyn markii dambe waxa helay ninka la yiraahdo xajaaj ayaa dhab soo siiyay wuxuu doonaba
muddo dheer kadib waa ragga uu ku qaatuma xumaystay xajaaj uu iska dayn karay wax dhiba kuma hayn in caalima aqoonyahana hubsida nin iska tegay uu dayn karay laakiin waa ka argoos uu soo qabtay markii uu soo qabtay ayaa uu umana sheegtay wuxuu yidhi sow raggii culimada ahayn wax siin jiray maad ahayn haa sow kaa kuumaan sabayn wax badan buu akhriyay haa intaasi way jirtaa buu maxaa kugu kalifay inaad kacdoonkan ka qayb gasho wallaahi si kastaba ahaata laakiin waxaan ka mid ahaa buu raggii taageeray ibnu ashcaf raggii taageeray baan ka mid ahaa buu markuu arkay inuu dilayo waxba ma sii barbaryin isagu waxba muu baryin laakiin wuxuu isku dayay inuu taariikh wanaagsan ka tago oo uu ninka hadalka iskaga caabiyo maxkamadiis meeshiisii uu dadka ku layn jiray buu soo joojiyey kursi dheer buu qaadanayaa 100 seefood buu hareerihiisa ka lulayaa kibir badan buu muujinayaa wuxuu ku yidhi masmuk maxaa lagu idhaahdaa waxaa la yidhaha buu saciid ibnu jubayr ayaa la yidhaahdaa xajaaj baa hadlaya waxau yidhi anta shaqiy ibnu kusayr magacaaga saasaa la yidhaha buui magaciisii buu beddelay saciidkiina shaqi buu beddelay jubayrkiina kusayr ama kasiir ayuu beddelay kii guuldarrada badnaaye jabnaa ayaa tahay weeye macnaha saciid baa markaa ku yidhi bal ummii kaanat aclama bismi mink adeer hooyaday baa kaa taqaana magacayga magacay hooyaday ii bixisay waa kaad sheegtay maaha saciid ninkii la odhan jiray xajaaj baa wuxuu idhi shaqiita ant wa shaqiyat ummuk hooyadaa iyo adiguba wax guuldarraystay baa tiinooyinkaani ku dhacday isaguna wuxuu idhi alghaybu yaclamuhu allah adeer waxa maqan ilaahay baa yaqaana ka shaqiga ah iyo ka saciidka ah waa qayb oo ilaahay baa yaqaana waxa uu yidhi laubadilannaka bidunya naaran talada walla inaan adduunyada kaaga dhigi doonta naar holcaysaan ku gelin doonaa buuhi adduunka saciid markaa wuxuu idhi low calimtu anna daalika biyadika latakhadtuka ilaahan haddaan ogaan lahaa inaad wax cadaabto dee ilaah baabaan kaa dhigan lahaa laakiin ilaahay unbaa wax caabuda anugu ilaahay baan caabudaa ilaahay baa wax cadaaba dhinac kale uu bedelo wuxuu idhi famaa qawluka fii muxamed ibni cabdilaahi maxaad u aaminsantay hadda ninkii sheekha abu caynkaa ku leeyahy waxau idhi nebiyu raxmati wa imaamu lhudaa waa nebigii naxariista iyo hanuunka xajaaj baa hadle wuxuu idhi famaa qawluka fii caliyin afi nnaari am fi ljanna calina dee waa kii caayi jiray markaa xajaaj iyo aalu beytka markaa wuxu uhi maxaad ka aaminsan tahay cali man inuu naar ku jiro mise janno saciid baa wuxuu idhi low dakhaltuhaa fa ra'aytu ahlahaa la caraftu haddaan janno iyo naar geli lahaa dee waan ka soo warrami lahaa waxa ku jira janno iyo naar adeer nin galay oo soo eegay dee mahi waa jikaaru waa la isjikaaraya waa la ishuruufayaa meesha xajaaj baa wuxuu idhi famaa qawluka fi lkhulafaa raggii madaxda ahaa ee ka dambeeyey maxaad ka aaminsantay saciidna wuxuu idhi lastu calayhim biwakiil malag ilaahay u diray anigu ma yihin xisaabtooda ma haya buu idhi iyo qoraalkoodana ma hayo xajaaj baa wuxuu idhi fa ayuhum acjabu ilayka hadda waa ninkanuu dilka u soo taagay buu waxaanoo su'aalaa weydiinaya canaad iyo kibir fa ayuhum acjabu ilayka keebaad la dhacsan tahay ama jeceshahay nimankaa madaxda ah ee reer bani umaya iyo khulafadii ka horraysay yaad jeceshay qaala wuxuu idhi ardaahum likhaaliqih ka ilaahiisa raalligeliyumaa nala raalli ka ahay xajaaj ba haddana wuxuu idhi fa ayuhum ardaa lilkhaaliq oo keebaa ilaahay raalligeliyey qaala cilmu daalika cinda allah dee taa ilaahay umbaa yaqaano anigu dee maqluubtoodaan ku jiraa qaala wuxuu idhi anta abayta an tusadiqanii aw an tasduqanii waa diidday buuhi inaad mar qura nacami tidhaahda soo maaha kuna beenin maayo kuna rumayn maayo buui markaa wuxuu idhi dhaafiya oo halkaa ku soo dila kolkii la yidhi hala dila buu ihi wajahtu wajiya liladii fatara asamaawaati waalard ilaahay baan wejigayga u jeediyey oo qibladan qaabila kolkaasuu ihi wajihuhu likhayri alqibla qibladuu sheegaya ka jeediya waxagaa kale u jeediya markaasaa wuxuu idhi fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu allah
meeshii la ii jeediyaaba waa wejiga ilaahay taasuu yidhi kubbuuhu calaa wajhi dhulka u rida foorariya meelahan uu sheegayaba ka jeediya markaasaa wuxuu yidhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa dhulka laftiisaa kiina laga soo saaraya taasuu yidhi idbaxuuhu aniga gowraca markaasuu ashahaatay ducana wuu ku soo gebagabeeya wuxuu yidhi allaahumma laa tusallidu axadan bacdi ilaahay ou ninkaa ah qof iga dambeeya ha ku sallidin qofka u dambeeyuu dilaa ilaahu aniga aan noqdo ducadii baa ilaahay horay ka aqbalay 11kii ramadaan ayaa taariikhdu markay ahayd hijrigu 5 11kii ramadaan ayuu dilay saciid ibnu jubayr isaguna 10kii dambe ramadaan buu dhintay ninkii u dambeeyuu dilay buu ahaa waxaa ku dhacay cudurka kansarka la yidhaa xajaaj binu yuusuf markaa wuxuu u qaylin jiray sida dibigu u qayliyoo kale khooq waa kan dibigu yidhaahda saasoo kale u qaylinaya xajaaj qolaa ku arkay markii dambe naar waxa lagu arkay riya lagu arko ilaahay muxuu kugu sameeyey baalin wuxuu igu sameeyey buuri waxa la iga raaco igu daraa dilkii xajaaj saciid ibn jubayr waaya markuu sii dhimanayay ninkaas xajaaj binu yuusuf la yidhaahdaa wuxuu ilaahu dambi dhaaf baan ku weydiisanayaa dadkuna waxay sheegayaan inaanadii dhaafi karaynin ogow ilaahay dambi dhaafkaaga ayaan rajaynayaa laakiin dadku waxay sheegayaan inaanad awood u lahayn adii dambi dhaafto marka dadka inaad beeniso oo taadaadii rumaysaabaan sugayaa buu leeyahay cumar ibnu cabdilcasiis oo dee ay dabcan dowladdii reer bani umaya un ka mid ahaa laakiin aynu ka soo sheekaynay cadaaladdiisa raggii canaanan jiray buu ka mid ahaa xajaaj binu yuusuf berigii dambe ee odhan jiray nin daalima buu ahaa 2 arrimood baan laakiin ninkaa isaga ah ku kamtaa buuri ama aan idhaahdaa buuri wuu ku wanaagsanaa kelmaddaa markuu sii dhimanaya uu rajaha muujiyey ilaahay rajihiisa inuu ilaahay rajaynayo uu muujiyey iyo qur-aanka wuxuu u qabtay qur-aanka uu jeclaa qur-aankana aad buu uga shaqeeyey oo ninkii dhibcahan ku sameeyey buu ahaa qur-aanka dhibcaha soomaad arag qur-aanku markii hore dhibcana muu lahayn xarakana muu lahayn xisbiyadan isagaa sameeyey dadka xufaaddaana aad buu jeclaa qur-aankana uu yaqaano oo akhri jiray ninkaas 2 arrimood marka laga tago waxa kaloo aad iyo aad awood badan u saaray uu baabiyey nimanka khawaarijta la odhan jiray ninka ugu adag ee hilifaa u qaaday buu gaal iyo khawaarij markaas arrimaha dhowrka ah ayaa aan ka soo reebi karaa buu ibnu kathiir oo taariikhda ka warramaya iyo imaamu dahabi raximahullah mid waliba markuu taariikhdiisa ka sheekaynayo wuxuu leeyahay xoogaa xasanaada wuu sameeyey laakiin badweyn dunuuba bartanka ugu jira ashahaadana wuu ku dhintay dulmigiisii waa qiraynaa inuu ahlu naar yahayna ma garan karnay arrinkiisa ilaahay baa yaqaana hadduu ka dhaafayo iyo haddii daalim buu ahaa muslina weeye macnaha nin muslina oo ashahaado ku dhinto daalina oo intaasoo muslina laayay dilkii ugu badnaa ee nin muslimiin dilo ninkii ugu badnaa caalamka soo maru ahaa marka waxaa loo yaqaanay almubiir aldaalim nin daalimahoo mubiir oo dhulbiisa ayaa loo yaqaanay marka arrintan culimmadu ay ka warramayaan dagaalkaa isaga ee dadka uu ku laayay waxaa loo yaqaanaa yowmuuljamaajim maalinkii madaxyada jumjumadu waa madaxyadii baa meel walba ku batay madaxii dadka muslimiinta dhakooyinkii ayaa meel walba ku batay waxyaabaha laga faa'iidaysanaya qisadan haddaynu dib ugu soo noqonno waxaa ka mid ah arrimaha siyaasiga ah marka ay noqoto waxa fitnada la yidhaahdaa ama ninkan meesha haystoo lagu kacaa kicitaankaasi inuu marka hore dadka u sahlan yahay laakiin mustaqbalkiisa dambe uu yahay mid laga murugoodo sidaa daraaddeed baa raggii berigaa ku kacay ee culimmada u badnaa xajaaj iyo dowladdii reer bani umaya way ka murugoodeen markii dambe markay arkeen siday uga dartay iyo siday arrintu u xumaatay
ay faraha uga baxday waxa laga faa'iideysanayaa bahasha fitnada la yiraahdo waxa la fitnadu daaman la qaabtaabay leedahay daba la qabta ma leh daamanku waa maxay balaaya fitnadu ka hortagun bay leedahay laakiin haday soo butaacdo daba la qabta ma way kugu muruxsanaysa way ku gali marka hadii ay fitnadu bilaabanto ta'ummu saaliha wa daalih cid walba way gaari inta soo aqoonyahana culimaa fuqaha ayay galaaftay dagaalka isaga waa ka ilaahay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa waxa iska ilaalisaan fitno iyo balaayo aan ku dhacaynin oo kaliya kuwa dulmiga sameeyay laakiin dadka oo dhan wada gaaraysa iska ilaaliya buu ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waa in la fikiraa oo la yiraahdaa ninkan hadii lagu kaco maxaa ka imanaya in lagu kaco meeya xaq tahay horta hadii se uu xaq ba u leeyahay in isbedel lagu sameeyo sidee isbedel lagu sameyn kara hadii la isbedel ku sameeyo ummaddu ma isku raacaysa mise isaga dadka isku laba rogayo wixii uu sameyn jiray wax ka daran sameynaya oo siyaasadda shariicada waxa la isticmaalo waxa la yiraahdo almuwazanatu bayna almasalih wal mafasid dibkiya dheefta la isu miisaama waxa kale oo la isu miisaama labada mafsado hadduu ninkani fasaad sameynayo fasaadka weyn ma dhalanaya ayaa la yiraahdaa marka yurtakabu bi akhafil mafsadatayn bijtinabi akbarihina laba dhibaato tayar baa la xamili iyadoo taweyn laga cararayo haddii dulmi laga cararayo iyo waxbuu qaatay iyo waxbuu kharibay oo haddii dagaal lagu qaadana meeshuba ay kala kacayso oo dalkuba baaba'ayo markaana waa loo kaadin halkaas laga eegaya waxyaabaha laga faa'iideysanayo waxa kamida shaygan la yiraahdo muslimka marka dhibaatadaasi ay ka dhaxdhacdo shisheeyaha ka faa'iideysta shisheeyaha cadawga shisheeyaha ka faa'iideysta shisheeyuhu inuu kugu soo duulo uu kula dagaalamo wuxuu ka jecel yahay inaad adigu kala jabto oo aad iskaraacdo isaguna halkan uu nagtaada fadhiyo kugu qoslo Soomaa taasuu ka jecel yahay Soomaalidu waxay yiraahdaan la fageel iyaga la isku garaaca la fageel mata jabin kari wayda laftan qaad dheero tan kale ku jabi marka la waxay yiraahdaan gudin yahay imaad goyseena geed baa yiri baa geed gudin yahay imaad goyseena barkayda kugu jira gudintu waa tan qaloocan saasoo marka hadiya jeer waa idinka arkayo geed baa dabada laga galiyaa geedka maxaa la yiraahdaa daab baa la yiraahdaa daab gudimeed daab baa la soo qaadaya saaw qaloocan mindidii birta haydna afka la gelinaya geedkii baa lagu garaacaya marka geed baa hadlay wuxuu yiri imaad goyseene qayb geed kale kugu jira marka maanta gaaladu muslimkay soo ciyaarsiiyaan mid baa lagu dhufanaya kana hubka la siinaya kolba kana oranayaan anaga kula jirno ka celinayna marka taana waa in lagu xisaabtamo fitnada had iyo jeer muslimka dhaxmarta inay ka faa'iideysanayaan shisheeyuhu ka faa'iideysto ku soo dhax galaana waa shaytaan waligiiba ka tagi maayo waxa halkan aynu ka faa'iideysanaynaa dadka mudan ee iskaba dhowrsoon ee iska wanaagsan ee iska fiican ummaduna u hanweynti diintooda iyo cibaadadooda iyo cilmigooda iyo sumcadooda loo hanweeyay mararka qaarkood inay ku simbiriraxan karaan siyaasada qaloocan ayaa laga faa'iideysanaya halka oo waaqicu si qaloocan isu tusi karo ama ay sabri kari waayaan ama ay caradu ku badanayso sidaa daraadeed ayaa waxa culimadan faraha badan aynu soo sheegayna lagu kaxaystay waxa lagu kaxaystay ninkan aynu iska fujinayna xajaaj la yiraahdo maanta xajaaj la dagaalankiisa miyuu muran ka jira miyaad ka shakisantay inuu xaq yahay taasa dad badan lagu kaxay ninka dhiiga cabaya aan iska fujinno de ma yoranin raggan la dagaalan warninku kaligii ma aha de khilaafad baa dhisan dawlad islaama dhisan way awood badan tahay muslimkii isku mar iyadii baa la isku raacay marka cidi khilaaf baa jiro laakiin dad la doortay bay ahaayeen marka sidan ku soo baxay ama aan ilaahnaa de isbedelkan boqortooyadan ku soo baxay de iyagii baa si caam loogu wada socdaa dad badan habadii danaad qalooc baa sameeyeen waxa lama eegin
sidaa daraaddeed ba axmed ibnu xambal raximahullah wakhtigiisii waa la xidhay waa la garaacay 4 calancalood baa laga garaaci jiray muddo dheer buu xidhnaa madaxweynayaal baa isu beddelay wax kale laguma xidhaynine waxa ay ummaddii wakhtigaa joogtay dadkii madaxda u ahaa dadkii madaxda wakhtiga ahaa ayaa waxay lahaayeen qur'aanku waa makhluuq nimankii muctasiladii baa fikirkoodii liqsiiyey isagii rag lamid oo culimana waxay lahaayeen qur'aanku waa kalaamkii ilaahay ha odhanin sidii baa lagu garaacay marka dadka qaarkood baa odhan jiray axmedow dee aan kuu hiilinoo nimanka la dagaalanno war way ka daraysaa iska daaya buu jir waryaale war way ka daraysaa anigii dhow qof bay taagan tahay wallaahi in haraggeeda lagu celin kari waayo oo meel laga soo qabto la waayo iska daaya buu odhan jiray munkarka xumaanta waa la diidayaa dadka mas-uuliyiinta ah oo lagu adeeci maayo laakiin xumaantu dee darajooyin bay leedahay lagu diido waa kaa nebigu mid qalbiga ah iyo mid qowlka ah iyo mid ficilka ah buu tilmaamaya marka ninkii awooddaba hayay hadduu xumaan samaynayo haddaad qowl ku diidi kartana waad ku diidi haddii aad qalbiga ka dhacdana waad ka nici ood qowlkaba lagu diido laakiin qadiyadda ah gacanqaadku dee waxaasaa ka soo baxay arrinkaa aadka u adkaaday waxaa kaloo xusid mudan markay wax dhacaan in culimmada had iyo jeer iyo aqoon-yahanka wax la weyddiiyo dadka culimmada aqoon-yahanka iyagu dee arrimaha si wanaagsan bay u miisaami karayaan laakiin dadku hadday isqanciyaan dhibkeeday leedahay alla wuxuu uhi waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituuna minhu marka cabsi iyo amni xumo timaado nimankan munaafiqiintii warka way faafiyaan may u celiyaan dadka aqoonta leh ee ulil amarka ah ee ahlulcilmigu ka mid yihiin kuwaasaa garan lahaa arrimaha sida loo miisaamo waxa la sheegaya iyo waxa aan la sheegay marka halkaa waxaynu ku soo ururinaynaa lama laha dulmiga ha la saacido madaxda dulmigooda waa laga beri noqonaya laakiin markay noqoto in isbeddel la sameeyo isbeddelkaasi waa inaanu fitno keenayn wixii laga cabanayo waa inaanu ka darayn oo waxaa la yidhi ka door waa inaanay ka dardhalin adigoo isla ka ray oo waxaa jira mushkiladda jirta ka ray wax ka daran waa inaanay keenayn